Somaliland ee ku nool magaalada Paris ee caasimadda dalkan France-ka oo telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV uga warbixiyay darooyinkooda ku aadan markii ugu horeysay madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wafdi uu horkacaya ay soo gaaraan magaaladani waxaana ay ka warbixiyeen dareenkoodu sida uu yahay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacaygu waa Salaam Cabdi Jaamac. Waxaan ahay jaaliyadda Somaliland ee Paris. runtii haddaan daraankayga ka bixiyo sida markii ugu horeysay taariikhiyan ee madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo uu loogu yimi waddanka Faransiiska. shucuurteedu aad bay u sarreysaa runtii ereyga kuma soo koobi karo qaabkii loo soo dhaweeyey iyo runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madaxda jamhuuriyadda Somaliland. madaxweynaha Somaliland safarkan uu ku yimi magaalada Paris ayaa waxa ku weheliyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland, wasiirka wasaaradda madaxtooyada, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo waliba wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo marwada koobaad ee Somaliland. waxaana jaaliyadda Somaliland ee ku nool magaalada Paris oo ay iyagana qayb ka ahaayeen haweenku ay ka warbixiyeen sida ay u arkaan soo gaaritaanka madaxweynaha Somaliland uu ku yimi magaalada Paris ee caasimadda dalka France-ka. oo ka tirsan jaaliyaddan haweenka ee degan dalka Faransiiska khaasaanka magaalada Paris waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo ah madaxweynaha iyaga jamhuuriyadda Somaliland oo markii ugu horeysay nagu soo booqday magaalada Paris annagoo wafdigiisa la hadalnay oo weydiisanay inaan madaxweynaha iyaga aragno markaa naloo ballan qaaday oo arki doono maalinta salaasada ee jaaliyadda Somaliland ee ku nool magaalada Paris ee xarunta dalka France-ka ayaa la filayaa in kuwa ballaaran ay la yeesheen madaxweynaha Somaliland maalinta Talaadada kaasi oo madaxweynuhu uu ballan qaaday inuu kala hadli doono waxyaalaha ay tabanayaan. Mustafa Hajadan Harun, telefishinka caalamiga ee Hon Cable TV, wararka Yurub.